عثمان عرو إن صار واحد لو كنت وفتي إن وفتي قلت محل كود هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan la kulmay walaal ka socotay dawladda Ingiriiska oo ka socday wasaaradda ahmed dibadda iyo safaaradooda sababa guud ahaan xaaladda dalka ayuun bay iyo wareysteen waxa kaloo iskaashiga Somaliland iyo dawladda Ingiriiska ayaanu ka wada hadalnay wata gudoomiyaha badan beesha caalamku ama wadamada Somaliland ka taageera doorashadu waxay ku celceliyaan in doorashada waqtigeedii la qabto in arigaas ka wada hadashay doorashada in waqtigeedii la qabto shacabkuna waa taageersan yahay bulshada caalamkuna waa taageersan tahay ka wada hadalay commissionka arrintiisa waan ka wada hadalay waxyaabo doorashada khuseeya iyo xeerkaas oo hadda guurtiisa ku maqan labaduba commissionkii dawladda ogeedana maanta waan iclaaminay in sabtida la ansixin doono haddii Ilaahay ka dhigo xeerkina markuu guurtida ka yimaado waa la ansixin doonaa marka labada qodob ma inaga qabiya inagu ah markay doorasho noqoto gudoomiye waxa kale doonaan ku weydiiyo shalay hore xildhibaanada baarlamaanka Somaliland iyo shir gudoonku hoosteys ka soo xideen iyagoo istirxaan bixinaya maxaad ka wada hadasheen qodobada gudoomiyeena soo qaadan maxay fadhiga xiran ujeedadiisu waxay ahayd laba arrimood mid wuxuu ahaa xogaagii dhacdhacay in la iska wada saamaxo dadku xildhibaanada iyo shir gudoonka iyo gudoomiyaha iyo la iska wada saamaxo arrintaasina si fiican bay u dhacday talabaadna waxay guubaabo ahayd la dargeliyo hawlaha golaha iyo xaadirka iyo shaqada golaha mudane gudoomiye waxaan jecelahay laba su'aalood oo kooban ku weydiiyo magacaygu Cabdiraxiim Waliid waxaan ka socdaa shabakadda wararka News gudoomiye waxaa tahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dadka siyaasadda xisbiga mucaaradka ee wadani dhaliila waxay ku sheegaan xisbiga wadani inuu yahay xisbi qabiil adiguna waxaad sheegtay xisbiga wadani sababta loo sameeyay inay tahay qabyaalad in laga tirtiro su'aasha ayada waxaad ka leedahay talabaad aan jecel ku weydiin waxa weeyaan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda maaliyadda waxay soo saareen warqad wada jira waa TV-da madaxa banaan ku duldhigaan lacag cashuura oo aan golaha wakiiladu jideen arrinta ayadana adoo gudoomiyay golaha wakiilada adoo gudoomiyay sharci dejinta sad u aragta labada arrimood toddoba soo horeysiyo markay dhinaca sharciga noqoto cashuuraha xukuumaddu way soo jeedisaa haddii cashuur cusub la xalaaleynayo marka cashuur aan goluhu ansixin hadday tahay cashuurtaasi mid sharciya maaha ma sharci darro xukuumaddu way kordhin kartaa cashuur laakiin waxa weeye dee in golaha la keeno dabeedna la xalaaleeyo marka cashuur aan goluhu xalaaleynin xalaal maaha talabaad xisaabta sidooda waxa loo sameeyey xisbiga wadani qura maaha inuu kaga baxno qabyaaladda sida xisbi qaran waxa loo koobay oo loo yareeyay waxay ahayd inuu kaga baxno qabyaaladda mabda loo sameeyay waana kaasa shuruucda dhammaanteedna waxay tilmaamaysaa inaanu xisbi aan noqon karin deegaan gaar ah ama cid gaar ah taasina beenta waxaa ku cadaynaysaa ururka wadani markuu ahaa degmooyinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxa isleeyahay xisbiga ururka qura ee degmo kasta ama wanka galay ama tuuga galay waxa reerka intaas oo dhan ma dego jamhuuriyadda oo dhan ma dego shacbiga soo saaray Somaliland waa shacab waxa isleeyahay uun propagandadaas mara TV-ga qaranka iyo wargeyska dawladda iyo qaar kale xukuumadda taageero waa laga yaabaa inay dee arrintaa faafiyaan laakiin waxa isleeyahay shacbigu way ogyihiin waxa taa beeninaya khamiista waxa ku soo biiri doona dadka Somaliland ay wada garanayaan oo reer Somaliland oo aan deegaan qura ahayn oo siyaasiyiin oo waliba ka tirsanaan jiray xukuumadda Axmed Maxamed Silaanyo xil muhiim ah ka soo qabtay dadka iyo shacbiguna wada garanayaan marka dadku halkan bay ku soo socdaan kuwii kulmiye ku jiray iyo kuwii aan xisbina weli gelin dhammaantood waxay ku soo socdaan xisbiga wadani waxaana u arkaan xisbiga ku badbaadaysa Somaliland inuu yahay xisbiga wadani waxaan cadeynayaa inuu dhammaan shacbiga reer Somaliland leeyahay inuu gudoomiye ma ka ahay laakiin waa xisbi shacbi oo shacbigu leeyahay taana maragiisa khamiista daawan doonta hadii ay ka dhigto